wafdi ballaadhan oo hogaaminayso marwoohinda xirsi jaamac gaani wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ayaa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyay magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo waxaana soo dhaweynta wasiirka ka qayb qaatay badiba bulshada reer Sanaag oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Sanaag isuduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Sanaag iyo marti sharaf badan ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay soo dhaweeyay wasiirka isuduwaha wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag Faadimo Xaaji Xasan iyo maamulka gobolka Sanaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhamaantiin waa idin salaamaya. Waxaan marka hore salaamaya wasiiradda iyada arrimaha shaqagelinta wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo soo booqatay oo ujeedadeedu ahayd inay ka qayb gasho nabadeynta degmada Ceelaf oo shaqooyinka ka dhexday labada arday walaalaha ah isla markaana u soo doonaysa inay u kuur gasho xaaladda gobolka Sanaag isla markaana doonaysa inay bal wasaaradda maadaama ay gobolkii soo dhex gashay inay u socday nabadeynta shaqaaqadii dhowrka jeer ka dhacday Ceelaf weyn dad 4 cashaa bay joogtay halkaas ay soo nabadeynaysay haddana waxay u soo kicitay gobolka intiisa kale si ay xaaladda uu gobol ku sugan yahay ugu kuur gasho waxaanu nahay wasiirka aanu leenahay ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow degmada Ceeri Gaabo aad baan ugu faraxsanahay in wasiirku noo yimaado isagoo degmooyinkii kale muddo dhowr cashaa ku sugnaa wasiirkana waynu afka haweenaha gobolka Sanaag waxaanu halka maanta ku soo dhaweynaynaa wasiiradda iyada qaaliga ah Hinda Jaamac Gaani oo aanu leenahay soo dhawow aad iyo aad baan u faraxsanahay hambalyaanu leenahay waxaanu leenahay wasiirka shaqagelinta qoyska isuduwayaasha haweenka dhammaan saxaafadda dhammaan dhalinyarada waxaan ku salaamayaa salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi wasiirada waxaan leenahay soo dhawow boqol ku soo dhawow afar ku soo dhawow gobolka Sanaag ana degmada Ceeri Gaabo baadara soo gashay aad baan kugu soo dhaweynaynaa waa ku maasantahay hawlaha aad soo qabatay shaqada Ceelaf gabagabadina waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Hinda Xirsi Jaamac Gaani maalmahana gudihiisa ku sugnaa maantana aan soo gaaray magaala madaxdii sidaad ka dhawaajiseen waxaan u imi inaan ka qayb qaato wixii igaga wajahan shaqaaqada ka taagan beelaha walaalaha ee degmada Ceelaf weyn alxamdulilaahi rabbil caalamiin sidaad la socotaan shirku shalay buu furmay wuxuu runtii u socdaa si aad u qurux badan oo lagu diirsado oo isafgarada oo nabadgelyo ah ayuu ku socdaa waan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay idinkana waxaan idin leeyahay qaybtiinu way banaantahay qof walba inta buu ku leeyahay ka qayb qaata insha Allah inagoo isku duuban aynu arrinta dhamaystirno aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka oo maxaan sheegay jagadii gudoomiyahana isagu hayo gudoomiye ku-xigeenkiina ah iyo isxilqaanka uu sameeyay aad baan dhamaantiin idinku mahad celinayaa sida isuduwu ka dhawaajiyay maadaama aan soo gaaray gobolka Sanaag sidii aan xilka u qabtay ee dawladda cusub ee hormuudka uu ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu xilkan igu magacaabay aanan u soo gaarin gobolka Sanaag oo aanan u imanin inaan soo kormeero wasaaradahayga meel kasto ay ku yaalaanba waxaan door biday waqtiga oo aad u adkaa inaan gobol walba marka aan shaqo u tago kaga faa'iideysto inaan wasaaradeydana si gaar ah u eego marka taas baan u imi baaqa aan dirayaan Ceeri Gaabo u diraya waxay tahay madaxweynaha iyo golaha wasiiradu waxay ansixiyeen kootadii haweenka ee golayaasha labada gole baarlamaanka iyo golaha deegaanka oo 18 hablood loo qoondeeyay inay ku biiraan ama ka mid noqdaan labada gole ee uu qaran ku leeyahay sidaa darteed waxaan idin leeyahay waa inaad u diyaar garowdaan waa inaad isbuurisaan waa inaad isgarab taagtaan xukuumadda iyo qaraarkeeda waa inaad ku dadaashaan sidii loo meel marin lahaa dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa kalena Ceeri Gaabo gudaheeda ayaynu Cadnaan Cabdirashiid Cali Telefishin